حديث أبي هريرة ورني بخاري كسبنا النبي يقول عليه الصلاة والسلام آخر الزمان كوحي من دونا وقت يوقف قرآن وأبي لين حوله قادنا يا حلال بمسوا حرام طب الله قرية يا أبا هذا ما كتير هذا المسكت ده يسوى حرام ضد بدن بحكونه حرام تمحيه يا إما كابان فرصتها عليه شان يسوى هذا وترى هي كلي مركب فتنة آخر الزمان كذلك كل عيسى أيه كم تهي معاسي حرام marka xaaraantu cuquubooyinka ay leedahay waxa kamid ah ducada iyo qofkii aan laga aqbalin xadiidkii wada haysaa nabigu sidee ducada looga aqbalaya qofkii xaaraanta ku xeernay waxa kamid ah amalkii saalix ahaa oo aan laga aqbalin sadaqada wuxuu ilaahay aqbalata ilaahay waa dayib oo wixii dayib uu aqbalaa sadaqa iyo deeq laga keenay xaaraana ilaahay ma aqbalo waxay kamid tahay asbaabta keenta cadaab qabriga rasuulka waxa la tusiyay sallallahu alayhi wasallam habeenada kamid oo la dheelmiyay wabi dhiiganin dhex taagan oo dhagax lagu garaacayo malaa'igtu waxay u sheegeen kii riba cunaha aymi baasha ribada la macaaside la iska dayn kari laayay waxay ka kaxaysaa xaaraanta xoolaha la haya barakada labada qof wax kala iibsanaya haday run sheegaan xaqiiqadana cadeeyaan ilaahay uu barakeeyaa beecooda hadii ay wax qarqariyaan muhiqat barakatu bay'ihima iibkooda barakada waa laga qaadaa ila mid ba xaraan isticmaalaya خاتمدنا إلهي وكحمية أو خاتمده وسيجا يا قف وهديه وحرام عن هاي ولا شهاده مركز صبر ترينيا وجاجالينيا وحا أيدشا نفط عاصماتك يا عرورته أنت بقى نيكي جبيه وحول العقوبة هالك لو قال يعوكه رداء عرورته كلا يساكي عنا بس لما أجنو كقرا يا ضد كقرينا يا عذرهم بهاي فرمسي بتاجنا يا دختر فرمسي يا دخترون بتاجنا يا isaga iyo habartiisii ciyaalkiisu way sii socdaan way soo socdaan go'an baab bay ku jiraan inna rabbaka la bil mursal ilaahay dhabagal buu kugu jiraa adigu daldalaysa xaaraanto iskama arkayside ilaahayna wuu ku daba taagay inna rabbaka la bil mursal mursadku waxa weey ilaahay oo ku arkayo ku eegaya oo ku ilaalinayo adigu aanad ogeyn iska ilaalinaynin marka caruurtii iyo iyagoo laga yaabo caruurtuna inay ku kalifaan iyo reer inama amwaalukum wa awlaadukum fitna wallahu indahu ajrun azim intuu leeyahay balqani ka dhigo dhaxal uga tago dadka la tartamo kan yeer ayuu rasaynaya baash iyo daalalaho duuniyo laho kal laho dabadna markaas xagga dambe isaga lagu bukaasaya almuhim waqtiyadan damana sahara aynu sheegnay waa fitna aad u badan marka in laga feejignaado oo qofkuna uu ku xisaabtamo xalaasha inuu ku dadaalo si uu u badbaadi karo adduun iyo aakhiraba وهذا ما أقوله وأستغفر الله والله سبحانه وتعالى